kadib doorasho waqti badan oo dheer qaadatay waxaa xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya hoggaanka dalka u cimaamadeen in madaxweynaha shanta sano ee soo socda Soomaaliya uu noqdo mudane Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo waxaana doorashadiisa si aad u soo dhaweeyay Soomaalida ku dhaqan daafaha caalamka magaalada Laascaanood oo xarun u ah gobolka Sool oo kamid ah 18 gobol ee Soomaaliya waxay caawahay mid bulshada ku dhaqan ay isugu soo baxeen shaariicada waaweyn ee magaalada Laascaanood kuwaas oo dareenkooda ku muujinaya sida ugu faraxsan yihiin doorashada Farmaajo waxayna dadku dhigan banaabaxyo nabdoon ay ku cabirayaan dareenkooda wadaniyadeed xilliga habeen dadku waxay ahaayeen kuwa shucuurtoodu kacsan tahay kolba dhinac u raacaya wadooyinka waaweyn kuwaas oo ku dhawaaqaya erayaha ugu cod dheerayeen Farmaajo guul dareenka dadka iyo xaaladda magaalada Laascaanood waxay ahayd sida tan dadka qaarkood aan dareenkooda weydiiyay waxay sheegeen in ay soo koobi kareen farxad ay dareemayaan balse ay ku faraxsan yihiin isbedelka dalka ka dhacay ee xildhibaanada hormuudka oo ahaayeen magaalada Laascaanood dadweynaha aad fara badan ayaa isugu soo baxay waxay wataan calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya sawirka madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Farmaajo maanta oo dhan waxaanu taagneen shaashadaha waxaanu la soconay ka war dhowranay isbedelka ay sameeyeen doonaan xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed waa guul soo yeetay dhammaan shacabka Soomaaliyeed magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool waxa caawa ka socda tan iyo doorashadii Maxamed Cabdilaahi Farmaajo loo doortay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya dibadbaxyo aad u ballaaran oo markaas nabdoon oo lagu taageerayo madaxweynaha cusub ee Soomaaliya yeelatay waa farxad runtii u soo yeetay dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa wax la rajaynayay mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed in maanta talada hoggaanka loo dhiibay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waanu ku faraxsanahay dareenkayga lama soo koobi karo waxaan naanaba garan mayna farxad darteed marka waxaan jeclahay in inaan u dhiibo Obama Care oo kamid ah taageerayaasha waaweyn ee Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa uu haystaa calanka Jamhuuriyadda Soomaaliya sawirada Maxamed Farmaajo bismillaahi raxmaani raxiim markuu ugu horeysa waxaan mahad u naqayaa ilaahay baan u mahadnaqayaa rajadayda qabay igu guuleeyay waa ilaahay mahadi marka labaad 60 jir baan ahay maanta nashay hadar inta ka dhaxaysa waxaan u dhimanayaa ma difaacaya macnuu halgamay calankii buluuga dagaalkii 7 baabuur baa gacantayda ku gubtay buluugay hooyadii dhashay weeyay anafyan baal baan u huraayay Laascaanood intaan joogay meherad yar baan ku haystaa waa la igu dilay waa la igu xidhay 17 maalmood baan xabsiga ku jiray ilaahay ma ilcidiima ogeyn rajaan qabay ka inaan u dhimanayo naftayda bar horaan ballan qaaday kitaab quraan gacanta saaray Maxamed Cabdilaahi Maxamed Shiil guusha uu gaaray waa mid anigu aan gaaray gacantayda ay ku jirtay caawa intaan noolahayna naftayda waxaan u hurayaa calanka buluuga xidigta shangeesta ale oo wallaahi oo bilaahi oo talaahi intaan adduunka ku noolay Maxamedna waa madaxweynahaygii weeye aan habeenaya maalinba ilaalinayaan garab taagnahay shacbiga Soomaaliyeed ka santahay waxaanu joognaa Laascaanood waxaanu soo dhaweynaynaa madaxweynaha cusub ee Soomaaliya waxaanu rajaynaynaa maanta waa habeenkii guusha Soomaaliya midoobay waa habeenkii amniga Soomaaliyeed u midoobay hambalyaanu la maanta dhabiyamaan cabin waxaanu sugaynaa madaxweynaha Farmaajo guul waanu leenahay ninkii kala saar rabow ninkii kala soo rabow aday taladii ku sheegto sidaad moodaysa maahe warooy Soomaali baa leh sareedo haday ku waarto hadii silciyo dhib gaadho samaanteed iyo xumaanteedaba Soomaali baa leh Soomaaliya ha waarto Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waa guul u soo yeetay ummadda Soomaaliyeed waana tii ummadda Soomaaliyeed dal iyo dibad bay ku riyoonaysay ilaahay ka barisay ku ducaysanaysay magaalada Laascaanood waxaan ogahay salaado sunnayaala in loo tukado ilaahay inuu Farmaajo ku guuleeyo waxaan leenahay ummadda Soomaaliyeed ee hambalyo ilaahay wuu ka aqbalay baryadiinii maanta caawa shucuurtayda aad ayay u kacsan tahay waxayna tahay inaan Muqdisho joogo kaleynaa inuu Farmaajo noo yimaado oo Laascaanood noogu yimaado guul ayaan rabnaa guul waan taageersanahay waxaa la yidhi faras dabaaldeg iyo orod loo dalbado maalin oo loo dudeeyo khalqigu daawasho u joogo haddii niman daryeelin xakamadda amanka u geliyo oo cidhibta daran dooriyo duba madaxiisa dabcin maayo oo wuxuu ka biqi inuu ka duulaayo gamcahaasi uu ka daystaa ninkii fulma daashaday adiga iskale adaa u qalma adaana kuugu hambalyeelanaa waadna mahadsan tahay waanuna ku salaamayna waanuna ku sugaynaa farmaajada la dooran koor waxaan lahay haddii aan si dhaba farmaajo loo dooran laan waxaan ku wadanaa inaan ku shisheeyo tagno 72 kun oo dhalinyaro ah oo ku balanayna taariikhto farmaajo qaban ayaa ka baaqsaday badda waxaan leenahay dawlad labaad baa dhalatay waxaan noo muuqda dawladda waddankaas wada gaadho farmaajo waa naga soo qaadin waanu naqaana madaxweyne loo hambalyeeyo iyo wuxuu guto waxaan ku leenahay waad gudanaysaa 6 bilood oo shaqeeya dadkay waxaan taageerayaa Farmaajo isagoo ku guuleystay madaxtinimada dalka Soomaaliya aad iyo aad u taageeraya Cabdilaahi Farmaajo waxa la yahay mudane madaxweyne noqonkii dalka
dalka iyo dadka iyo diinta anfaca dhammaan ummadda Soomaaliyeed waxay ku leedahay hambaliyo gaar ahaan shacabweynaha reer Laascaanood jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Jaale Maxamed Cabdulaahi Cumar Farmaajo waxaan rajaynayaa guul iyo gobonimo leenahay karti iyo aqoon baan kugu raacnay madaxweyne karaamiye garaad baan kugu raacnay madaxweyne anagoo kugu raacnay madaxweyne ku garaacnay reemaha ku rigsiinay shacabko ku ruxnay caleemaha ku riyaaqnay madaxweyne ku ruxleynay adigo rugtay kursigaagi noo fadhiiso Farmaajo waxaan u ambaleynaa madaxweynaha cusub ee federaalka Soomaaliya mudane Farmaajo waxaan rajaynaynaa horumar cusub iyo dal cusub wax cusub baa noo bariyay alxamdulillah raxiimaad baan u faraxsanahay dadka Soomaaliyeed maadaama madaxweyne cusub noo dhashay madaxweyne Farmaajo aad baan u soo dhaweynaa waxa ku nool magaalada Laascaanood waxaan leenahay madaxweyne cusub ayaa noo dhashay aad baan u faraxsanahay gaar ahaan magaalada madaxda Laascaanood waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inuu mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo uu ku guuleystay xilka 4 sano soo socda uu qabtay dawladda federaalka Soomaaliya waxaan baleenaynaa hadaan nahay dhalinyarada iyo dadweynaha ku nool gobolka Sool madaxweynaha Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaan leenahay ku soo dhawow dadkaagii dalkaagii insha Allah guul baan ku rajaynaynaa waxaan laga rabaa dalka inaad ku xukmisid cadaalad waana humeeyay cadaalad ku xukmin doontid bedeli doontidna farqaha u kala baxay dalka sida Puntland Somaliland waxaan rajayn doonaa inaad isku xiri doontid oo noqon doontid mid ka dhigi doontid mid hal calan leh hal dadna leh hal diin leh la qaybsanayaa shacabka Soomaaliyeed dareenka farxadda leh anoo ku nool gobolka Sool ee ka taliso maamulka Khaatumo hadar badankeeda leeyahay mudane Farmaajo halkan aad uga hambalyeynaya madaxweyne hambalyadan iyo dareenkan aad aragtay shacabka waxay xambaarsan tahay in ay noqoto waxa aad noo muujisid Soomaaliya waxaan rabnaa inay isbedesho madaxweyne waxaan taageero u dirayaa madaxweynaha cusub ee dawladda Soomaaliya haddaanu nahay shacabka reer Sool si ahaanba dhalinyarta waxaan leenahay mudane madaxweyne waan ku hambalyeynaa madaxweynaha la doortay Maxamed Cabdilaahi Farmaajo Farmaajo waa nin muwaadin Soomaaliyeed aad baan ugu faraxsanahay soo dhawaad leenahay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo gobolka ka taageeraya Farmaajo mudane madaxweyne waxaan ku leenahay gobolka Sool shacabka joogay oo dhan ilaa caawa ku mushaaradayaan waxaan ka rabaa inaan u hambaliyo madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaan leeyahay xildhibaanada qaranka Soomaaliyeed waad gudateen waajibaadkiinii qaran waan soo dhaweynaa madaxweynaha cusub ee la doortay wax Soomaaliya waxay u baahan tahay isbedel kii hore waxa nama tarin kan ilaahay waxaan rajaynayaa inuu khayr hay ka dhigo anu sideedaba horta xalay ayaan ku riyooday in Farmaajo helayo ما شاء الله ما أنت راح تكون دور صلاة والبلد سمنا كده تكون دعاء خرسني waxaan aad u taageerayaa madaxweynaha cusub Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxaan oran karaa madaxweynaha Soomaaliya qoriye dalka Soomaaliya wax u qaban kara calanka buluuga ee bilicsan sawirada madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo waxay ahaayeen kuwa ay si aad ugu dhex muuqanayeen gacmaha dadka dibadbaxan dhigaya sidoo kalena dumarka ayaa geestooda durbaano mushaharad sawaxan kala go' lahayn hadba dhinac ugu laafiyoonayay wadooyinka halbowlaha magaalada Laascaanood halka raguna ay fagaarayaasha waaweyn ee magaalada Laascaanood ay ku ciyaariyeen ciyaaraha hidiya dhaqanka ay kamid tahay Jandeerto dadka reer Laascaanood waxay ahaayeen kuwa qalbiyadooda ay soo jiiteen ka gadaal ogaanshihii doorashada dalka Soomaaliya iyagoo silma filaan isugu yimi kana midaysan dareenka wadaniyadeed ee Soomaaliya idilkeedu muujinayaan madaxweyne Maxamed Cabdilaahi Maxamed Farmaajo Maxamed Axmed Jaamac Maxamed Bidaanshe تلفزيون كعالمي جاي وابري ما قادر